maalmo dheer oo dadka mandiqada Puntland ay sugayeen inay codadkooda dhiibtaan kuna soo doortaan xubnaha ku matali doona shaqooyinka dawladnimo gaar ahaan golaha deegaanka ayaa si rasmi ah maanta safaf dhaadheer ugu jira si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan dadka matalaya waa tallaabo wanaagsan marka loo eego xagga horumarka ee Soomaaliya kasoo yeedilada ay dhinacyada Soomaalida arrintan gelinayso saameyn kale oo xoogan ayay ku yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Puntland dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay bilowgii bishan sheegeen in Puntland wajahayso burbur iyo kala tag xoog leh sabab la xiriira in codka dadweynaha loo celiyay laakiin shacabka Puntland taas maanta ma hayaan soddon degmo ayaana u dareertay sanduuqa codbixinta si ay u doortaan xisbiyada 10 sano ee soo socda matali doona Puntland iyo golayaasha degmooyinka ee 5 sano ee nagu soo aadan in doorashooyinkan ay si nabad ah ku qabsoomaan soddon degmana codka laga dhiibto madaxda federaalkuna ay si weyn uga soo horjeestaan waxa ay wajigabax siyaasadeed ku tahay dawladda federaaliga ee Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay fiila Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh gelinaysa in doorashada la baajiyo waxaana la aaminsan yahay in $100,000 lagu bixiyay si doorashada amnigeeda loo khalkhalgeliyo iyadoo la fashilinayo heshiisyo siyaasadeed oo la xiriiray in ugu dambeyn caasimadda Puntland ee Garowe ay ka mid noqoto goobaha codka laga dhiibanayo laakiin culayska madaxweynaha Soomaaliya ayaa keenay iyo dadaalka xoogga leh ee fiila Soomaaliya u gashay in Garowe maanta aysan codaynta qayb ka noqon iyadoo adeegsanaysa xubno ka mid ah siyaasiyiinta mandiqada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana la aaminsan yahay inay kala saari waayeen wax shakhsiga ay kala dhaxeeyo Siciid Deni iyo in dadku codkooda ay dhiibtaan oo ay tahay mid ka mid ah mas'uuliyadaha waaweyn ee dhankooda laga sugayay 2023 Puntland waxa uu yahay sanad saada u leh Puntland la asaasay 1998 ee kolkii dambe noqotay Puntland kale 2007 inay imika noqoto Puntland 2023 iyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo madax bannaan waa hawl iyo tacab dad badan ay gacan ka geysteen faa'iidada ugu weyn cidda heshayna waa Puntland 2023 taas oo musharax dambe uusan ku soo ololeyn doonin laascaan ayaa la soo celinayaa waana doorashadan iba fur kale oo ay sameynayso madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa sheegay in talaabadan ay muhiim iyo idil u tahay hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in codaynta shacabka oo codka loo celiyaa ay tahay waxa ugu weyn ee laga filayay Puntland Soomaaliya arrintan waxa ay ku noqonaysaa mid ay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadu ku khasbanaan doonaan in dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya ay waqti geliyaan sida ay meelmar uga dhigi lahaayeen damaca dadweynaha 25 sano oo amni iyo horumar deegaanadan uu ka jiray markii koobaad ayaa dadweynuhu ay si wada jira 30 magaalo ama degmo oo ka kala tirsan deegaanada Puntland ay codkooda u dhiibanayaan waayeelka ayaa ka mid ah dadka codadkooda saaka safafka u galay taasoo muujinaysa ku dhiiranaanta iyo xamaaska ay dadweynuhu doorashadan u qabaan kala doorashada 7 urur siyaasadeed ayaa iyana noqonaysa wax kale oo muhiim ah iyadoo ilaa iyo hadda dastuurka Puntland uu ogol yahay in 3 xisbi siyaasadeed ay soo bixi doonaan laakiin qaybo ka mid ah degmooyinka Puntland ayaysan wali doorashadu ka qabsoomin waxaana ka mid ah goobahaasi caasimadda Puntland ee Garowe oo ay jiraan siyaasiyiin wali diidan doorashada kuwaasoo cabsi ka qaba in doorashada oo qabsoonta ay waxyeello u ganaysanaysa mustaqbalkooda siyaasadeed gaar ahaan doorashada loo madlan yahay ee 2024 arrin kale oo dhacdadu ay saameynayso waa xaaladda gobolada Sool iyo Cayn oo iyana u baahan doonta maarayn marka loo eego in doorashada aysan guddiga doorashadu isdiiwaangelin ka samaynin taas oo iyana muujinaysa in rabitaanka dadka deegaanka si baaxad weyn loo eegayo Puntland iyo Siciid Deni waa u maalin kale oo gusooro wanaagsana dadka Puntlandna waa maalin kale oo ay ka dhabeeyeen mid ka mid ah hadafyadii loo dhisay maamulkan laakiin sida ay Soomaaliya u gudbiso ayaa iyana su'aal kale soo celin doonta taas oo il gaar ah lagu eegi doono 2016 Puntland ayaa u ololeysay in doorashada Soomaaliya ee heer federaal lagu galo deegaanka laakiin dawlad goboleedyada Soomaalida iyo siyaasiyiinta koonfurta ayaa diiday mar kale hanaanka loo gali doono doorashada 2026 ee Soomaaliya ayaa ahaan doonta waxa ugu weyn ee Puntland ay